arrimaha dastuurka Ethiopia wasaarey miiska laba loo qaybsan qolale article 39 hala baabiyo federation kan iyo waxaan ethnic federalism wala lagu noqdo hadii federalism sameeyay wax la yiraahdo muxuu ahaa geographic federalism oo sidii waag hore hararga iyo baale iyo sidaama la yiraahdo hal isku daro qoomiyada qolana waxay leeyihiin maya shucuubtan dibada baa kala gaaray mustaqbalka laga yaabo fog in dadku ay toos hal u noqdaan laakiin hadda waqti xaadirka ethnic federalism laga maarmaan weey nabadgelyada amniga ku jirta qolo walba asaasi doonaysa marka waa laga doodayaa marka aqoon-yahanka constitution yaqaan loo baahan yahay adduunka constitution wax difaaci kara waxaa loo baahan yahay democratic institution soo dhiso waxa weeyaan hay'adaha dimuqraadiyadda ee dalka hirgala si loo dhisaa waa dood ayadana taagan weyn waxaa ka soo bixi doona dhow baxdi baa ka soo bixi doona waana laga rabaa waxaana laga rabaa siyaasadda dibadda Ethiopia aqoon-yahanka ka doodaya kaalinta ku leenahay annagu haddaan nahay siyaasadda dibadda maxaan ku leenahay annagu xisbi ahaan maxaan aaminsanahay siyaasadda Ethiopia in la ku yeelan waayo waxa weeyaan geeska Afrika dana badan baa naga dhaxay Djibouti dan baa naga dhaxaysa Eritrea dan baa naga dhaxaysa Soomaaliya dan baa naga dhaxaysa Kenya dan baa naga dhaxaysa Suudaan dan baa naga dhaxaysa maxaa dal Soomaaliya ku leenahay meeshaas siyaasadda Ethiopia ka muuqataa rabnaa siyaasadda Soomaaliya kula dhaqmayso maadaama aan walaalanahay had dheer wada leenahay dhaqan iyo ganacsi naga dhaxay Ethiopia sida Soomaaliya ula dhaqanto anagana saameynaysa hadii dagaalamaan waa ina saameyn oo naloo colaadin hadii heshiiyaan waa ina saameyn wadooyinka noo furmiyo wax baa ka imaanay markayna wax ku yeelan foreign policy Ethiopia waa laga dooday Ethiopia baa ka doodaysa marka aqoonyahanka meesha inuu tagaan rabaa okay maxaa kaloo la rabaa sida qaran loo dhisaa state building maxaa saldhig u ah waa laga doodayaa marka hadii adigu aad ka maqan tahay codka meesha ka maqan yahay sida ay rabaan baa lagu dhisayaa bari waa lagu keenayaa sharci la diyaariyo waa lagu keenayaa ciid difaac ilaad baa la rabaa inta aqoonyahanku fariisto qodob badan taxliiliyaan in mowqif laga qaato Soomaaliyeed xisbiyada anagu aan qaadano anaguna siyaasiyan uga doodno iduguna aqoon-yahanada uga doodaan oo waxba kuma kala duwan ama xisbi Soomaaliya noqoto ama dawladda ha noqoto ama feeb ha noqoto ama aan la noqoto mowqif Soomaaliyeed baa jira kulliga hadda waxaan wada aaminsanahay federalism daraad waxaa la qaaday aftida waxaa la yidhi boqolkiiba 52 Soomaalidu waxay rabtaa federalism soddon way diidan tahay in kalena ma dhaxday ku jirtaa muxuu ahaa labaatameeya ma aamini kara taas anigu ma aamini karo dad 100 sano u dagaalamay xaqooda inay yiraahdaan maya ma rabno muxuu federalism waxaan rabnaa muxuu ahaa in state unitary aan rabnaa ana waad garan kartaa marka waa meelaha ka maqanahay institutionada researchka sameynaya hal qof Soomaali kuma jiro doorashooyinka hal qof Soomaali kuma jiro institutionada Ethiopia koro idil waa ku yaryahay Soomaali markayna ka muuqan laga maarmaan weyn waxaa jira asna topic kale oo good governance maamul wanaag wuxuu yahay annagu saan arag maamulka Soomaaliyeed maxaa ka rabnaa maamul wanaag inuu ajandaha yaalla meesha oo waqf Soomaaliyeed yaalla marka waa qodob waa arinta interparty dialogue ah waxaa rabnaa sideed aqoon-yahan oo sideed topic qaata ayagoo Soomaali masalaya halka fariista wax ka difaaca tashi sameeya oo mowqif Soomaaliyeed meesha geeyay aqoon-yahanka si loo arko dii kale waxa weeyaan de Afrikaadina waan ka mid ahay baa meesha ka hadlay adoo aad ornaysaan lama tashado marka degdeg baan looga rabaa wiiga soo socday bilaabanaysa waxaan idinku yeeray emergency-ga taas ugu badan dad fariisataan tani bari waa inaa helo liis sideed aqoon-yahan oo khubaro u ku ah qodobada sheegayna muhiim ah shahaadadu haysto laakiin qof masali kara ummadda inuu noqdo muhiim articulate garayn kara yani mowqifkan wax hadda cusub oo badan oo aan raadinayna ma jiro oo aan leenahay waa lagu kala duwan yahay walaa xisbi Soomaali BB baan dib ku qabin walaa waan baan dib ku qabin walaa faabiyo dawladda dib kuma qabaan mowqif Soomaaliyeed oo xaq aan ku leenahay meesha laga raadinayo si peaceful ah weeye habayaan yani marka taa idoo mid taalo weeye kharashka ayaga qaba ayaga diyaaradda bixinaya inta meesha la joogo bishii hal ajenda laga hadlaya wax culays badan keenaya maaha marka taas ayada labada madalood waxaan ka rabnaa si official ah inay tay fariistaan tani birito noo soo saaraan sideed xubnood oo aqoontaas la warqadahay waan haynaa waan siinaynaa yani iska rabo gudoomiyaasha madasha ma fadhiyaan joogtaan soo ma okay waa labada ajenda waan rabnaa inaad soo fiirisaan labada madalada jira xubnaha aqoon-yahan oo aan ku jirin baa jira madasha marka aqoon-yahanka taas waan ka rabnaa arrimaha dhisidda hay'adaha dimuqraadiyadda samaynta sharciga iyo xarumaha sharci fulinta ah siyaasadda arrimaha dibadda
dhismaha qaranka iyo howlaha la xiriira arrimaha maamulka suuban oo sideedaa qodob. Waa multi-party system, election process, constitutional issues, building democratic institutions, the supremacy of the rule of law, foreign policy formulation, state building and related issues, good governance. So sideeda qodob weeye. Waa agenda national weeye. qowmiyadahooda aqoonyahankooda way soo magacaawdeen. hadda meeshii hanugu cabeynina dika la sooreyaashan u diraynaa dhowna xabad kaliya dadka ka masuula marka waa qasdada qoltaas ahayd. waxaa kaloo jira in muddo ah oo aan la faxay diidanayd qaabka loo soo habeeyay national dialogue. xisbi aan ka midnaha 10 yaa diiday qodobo ay ku diideen. waxaa ka mid ahaa shuruucda qayb ka mid ah iyo qaabkii loo soo doortay. dowladdu way ka jawaabtay, way nala kulantay, 4 shir baan galnay, qaar badan way ka garowday. annaga waxaa noogu weynaa wuxuu ahaa aqoonyahankeenna. waxaan idhi 3,000 oo PhD baa joogtay Ethiopia halkan soo fadhiisanaysa, laakiin annaga 12 baa laga yaabaa dadkeena joogto. dadkeena bannaankay jiraan. sharcigana waxaa ku qoran qofka guddiyada ka qayb galaya waa inuu Ethiopian yahay wey, macnaha baasaboor ajnabi haysan. way ogolaatay dowladdu. waxay tiri guddigii hore waa la dhisay, laakiin committeeska aqoonyahankiina dibadda joogay kuwa gudaha joogaba wuxuu rabaa haysto wuu ka qayb geli karaa. marka guddiyaa la dhisi doonaa national dialogue. guddiyaa la dhisi doonaa oo themes baa la samayn doonaa. taa ayadana waxaa weeye waan ka wada soconaynaa. waa qolyaha hadda waan isaf garanay. waxaa la rabaa marka inaan diyaarin aqoonyahanka iyana ka qayb geli lahaa. waxaa la rabaa ajenda Soomaaliya tan hadda ajendayaashan hordhac bay u yihiin xisbiyada sii doodaya, laakiin si guud annaga ajendaha meesha la geenaya annaga waa inaan xulano ajendaha maxaa muhiim noo ajendaha xulnayn. Soomaaliya haddaan nahay wadaxaajoodka Ethiopia isugu imaanayso maxaan la tegaynaa, maxaa naga maqan. marka waxaa loo baahan yahay aqoonyahanku inay fariistaan. annagu xisbiyadii waa fariisanaynaa. waa inaan marka comparison note samayna. dowladda waa inaan la fariisano, dowlad deegaanka, xisbiga BB waa in la fariisano, xisbiyada kula fariistaan, ururada bulshada ay fariistaan. kulli waa laga qayb galayaa, ilaa tuula laga qayb galayaa. konton baa degmo walba laga rabaa. marka waxaan rabnaa dadkeenu waxay la tegayaan aqoonyahanka indhaha aqoonyahan waa idinka indha u ah. tiim Soomaaliyeed waxaan naga maqan, waxaan ku doodayna, waxaan la tegaynana waana degdeg buu isaga bilaaban. barnaamijka uu bilaabanaya. marka taana inay u diyaargaroodaan oo taa loo diyaargaroobo. odayaasha laga rabaa, odayaashu inay la kulmaan, odayaashana waa la kulmi doonaa, ururada bulshadana waa la kulmi doonaa. laakiin tiimamkaas ay yaalla marka waxaa weeye meeshii ama ka maqnow ama ka muuqaa la yidhi soo ma. meeshii waan joognaa hadda kama maqnin. marka waa inaan ka muuqano wey, waa inaan danteena ka muuqato wey. marka ku talagala, ilaahay baa iskaana baday. hadda wataan idiin sheegayo halkaa loo soo wada socdaa. kulli Ethiopia inteeda kale dab baa ka shidan. marka waa runtii wax lagu faano wey in la arko maanta annagu inaan nabadda dadka dagaalka lagu sheegi jira annagu inaan ugu fiicannahay maanta. taa macnaheedu maaha inaan xaqana ka leexanay maaha, ay ka tashiga inaan ka tagnay maaha. laakiin waxaa weeyaan salaad walba siday kuu qabtaa loo tukadaa. maanta dantu waxay ku jirtaa inaan nabadana ilaashano, xaqeena nabad ku raadin. reer caalamka way nagu faraxsan yihiin. waxaa weeyaan diblomaasiyiinta meel fiican baan ka maraynaa. dowladda Ethiopia heer federaal iyo heer shucuubba fikir fiican baa Soomaaliya laga haystaa, ururadeeda laga haystaa. marka wax lagu faano wey insha Allah biidhnillaahi kariim. nuxurka marka anigu aan idinku yaaray arrin emergency ahayd. doodo badan caawa inaan galno kuma aanan talagelin guud ahaan, laakiin waxay ahayd arrintaas oo degdeg la isaga rabo inaan idinla socodsiiyo, kadibna aan isu nimaadno aan ka doodo waxa naga guuxaya oo idin maxaa mustaqbal noo ah, see fiican oo si sirka uga faa'iidaysanaa, maxaa naga maqan, maxaa dalkeena dan u ah, annaga gudaheena maxaa dhibaato ah. 2,000 qof baa ku dhimatay dalka hadda 2 sano u dambeysay. in laga wada hadlo, odayaasha ka wada hadlo, shacabku haweenka ka wada hadlo wey. waayo dadkeena ilaa 67 xabad ma dhacaynayna, maxaa maanta sulaynayna reer hebel, tuule hebel, qole hebel dad wada dhashay oo isku xabiis ku wada Soomaali ah oo jiinskooda marka la baaray. banaanka haddaad tagto jiinska marka la baaro daarood dir hawiyeedooda halkan bay taallaa. marka la baaro kulli isku jinsi wey, hal xabo wey, waa laga waayo wax firaaqa ah. marka kulli su'aalaha gooniyaas ka noqdaan ala culum dadka Soomaaliyeed dad wada dhashay wey, waa dad isku dana wey. waxa weeyaan waa dad qowmiyada waaweyn la tartamaya wey. marka hadday isku mashquulaan tartanka waan ka haraynaa. marka aqoonyahanka laftiisa inay arrintaa baaraan maxaa keenaya waxan. ma policy dowladda ka imaanaya siyaasadeeda yaa xun maxaa deegaanka, ma policy shucuubta gudahooda ka imaanaya, ma ururadeena xisbiyada mas-uulka ah. waa inaan baarno dawo u helno wey. maalin walba laba reerkeena ay iska dilay wax oo ibir iska dhigay. marka taa lafteeda waxyaabaa noo yaalla wey. marka bal aan u soo jeesanno, hala yimaado, hala tashado, afka hala isa saaro. waxba cabsi weyn dhammaatay, ma iska cabsanaysaa hadda qola waa igu lahayd sawirada naga daay, hadalka naga daay.
waxaan kaga hadlayna sabab kaga hadlayna dhib ma jiro anagu dowladda Itoobiya meel ku duulayna kursiga ma ka rabnaba abi kursi kuma dhisan inta ay yartaan si fiican uma mulada doonina marka cabsida hal iska daayo anagu dowladda Itoobiya colna ma aha anaguna col lama nihin Soomaaliya dan marka aan danteena qabsano oo geesinimo hal yeesho danteena qabsano cabsida hal iska daayo haween wax problem ma jiro Itoobiya ku saabsan anaga Soomaaliya ma dowladda Itoobiya ka dhacay ma jiro wala xisbiyeeda wala muxuu ahaa maamuladeeda waxa weeyaan waxaan maraynaa marxalad maanta aan wax faa'iideysan karno dal dhageysan karo laakiin waxa loo baahan yahay in la helo dadkii waxa ka faa'iideyn lahaa marka wahamkii iska dhaafo uu dhamaaday Itoobiya qoomiyada siman baan qolo ka adag ma jirto Itoobiya waa Oromo waa Soomaali waa Amxaar waa Tigray waa shucubta koonfureed gaamo iyo qaardood soo bartay gafo iyo dawro iyo bali konsiya malaayiintaas qolo walbana war waxayga baan rabaa weelada cid dambi ay ku tahay marka aniga waxa dambi nooga dhigay ma jiro marka geesinimo loo baahan yahay cadkiina soo baxo dantiina qabsada dhibaato ma jirto dowladdan doorashadii say ku heshay Ilaahay baa ogaa ayda xukunta hadda labada sano cidla samaysa ma laha laakiin danteena waan ka hadli karnaa dowladda deegaankana duulaan kuma nihin taaf korna duulaan kuma nihin laakiin xaq aan u leenahay xisbiya haddaan aqoonyahan haddaan urur bulshanahay in danta ummaddan laga hadlo oo la isweydiiyo oo si positive looga hadlo marka geesinimada hala yimaado inta waa iga talo guud weeye aad baan idin mahadinayaa aad waxay weydiinaysaan hadaad ra'yi dhiibanaysaan tiimkeena wuxuu ahaa maanta labadaa shirba in loo diyaar garoobo shirka qarankana uu imaanaya by all means waa la qabanaya ama Itoobiya dagaal ka socon shirkan xisbiyadana uu imaanaya marka Soomaali baa shayna ka muuqato weey hadda waan idin soo bandhignay haddii aad nagu kaalmaysaan idinka is kaalmay haddaad naga seexataan idinku baa iska sahlan aadna waan idin salaamayaa aad uma sii dhexgelin wax badan oo siyaasadaha laakiin guud ahaan waxaan sheegay xaaladda guud inay iska fiican tahay Soomaali haddaan nahay position fiican baa siyaasadda maanta kaga jirnaa marka insha Allah waan sii xoojinaynaa taas ayadaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته